بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد walaalayaal waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii aan isku xusuusinaynay sidaan uga faa'iidaysan lahayn bishan barakaysan ee Ramadaan xalaqadan kooban waxay ku saabsan tahay Ramadaan wal Qur'aan bisha Ramadaan iyo Qur'aanka Kariimka ah sidaad ogtihiin qur'aanka kariimka ah oo kitaabkii ilaahay ah oo kalaamu rabbi alcaalamiin ah waxa uu soo degay ama ilaahay uu soo dejiyey bishan barakaysan ee Ramadaan shahru Ramadaan alladhi unzila fihi alqur'aan hudan linnaasi wabayinaatin min alhuda walfurqaan buu ilaahay subxaanahu wa tacaala bisha Ramadaan waa bisha ilaahay subxaanahu wa tacaala uu maartay soo dejiyey qur'aankan sharafka badan marka waxaa aad iyo aad muhiim u ah in bishan qiraa'ada qur'aanka aad iyo aad loo badiyo iyadoo goor walbaba qofka muslimka laga rabo qur'aanka akhrintiisii iyo ka warqabkiisii iyo ku dadaalkiisii iyo xifdintiisii iyo fahamkiisii inuu joogteeyo haddana bishan markay tahay waa bil ku gaar ah qur'aanka sidaa darteed bay culammadii salafka yacni marka bisha Ramadaan la gaaro waxay samayn jireen yacni waxay duruusta oo dhan bay joojin jireen kutubtay dhigayeen ama duruustay dhigayeen ayay joojin jireen oo warka naftoodii waxay u faaruqinayeen inay qur'aanka ay akhriyaan markaasa waxaad maqlaysaa inaad maqlayso matalan qaarkood waxay dhammayn jireen maalin walbaba mar ilaa aad maqasho marka dambe qaar baa dhammayn jiray habeenkiina mar maalintiina mar marka waxay kutusaysaa waqtiga ay gelin jireen inta uu leegyahay ayagoo og fadliga qiraa'ada qur'aanka uu leeyahay maxaa yeelay xasanaadka ka xasilaya wax la koobi kara ma aha man qara'a alqur'aana falahu xasana buu yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam qofkii qur'aanka akhriya xasana buu leeyahay walxasanatu bicashri amhaaliha xasanada ama ajarkana 10 jeer baa la laablaaba wuxuu yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam laa aqulu alif laam miim xarf walakin alifun xarf walaamun xarf wamiimun xarf alif laam miim oran maayo buu yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam waa xaraf aliftuna waa xaraf laamtuna waa xaraf miimtuna waa xaraf alif laam miim marka waa 3 xaraf mid walbaba 10 xasana aad ku helayso bal ka fikir markaad juz qur'aan aad akhriso ama 3 juz maalintii akhriso ama 5 juz akhriso oo xaraf 10 lagu siiyo inta xasanaada ee ma aragtay aad yacni lagu keedin doono ama xisaabtaadii aakhiro ku geli doonto runtii waxa qiyaamaha lagu badbaadayo waxa weeyaan yacni miisaanka xasanaadkaaga inuu aad iyo aad u badan yahay faman thaqulat mawaaziinuhu faulaa'ika hum lmuflixuun buu ilaahi subxana wa tacaala qofka miisaankiisa uu cuslaado yacni qofkaasaa liibaanay qofkii miisaankiisa uu fududaado oo xasanaadkiisa uu noqdo mid fudud sayi-aadkiisa ama xumaantiisana mid culus qofkaasaa khasaaray marka qur'aanka in aad iyo aad loo akhriyo oo yacni la khatimo oo lagu tadabburo oo si fiican maaragtay looga faa'iidaysto bishan yacni aad iyo aad bay muhiim u tahay iyadoo markaasi tadriibkaas ama yacni tababarkaasi aan helayno qiraa'at alqur'aan oo faraha badanna ay noo fududayn doonto Ramadaan kadib inaan qiraa'adii aan sii wadno oo aan sii joogtayno maxaa yeelay walaalayaal qofka muslimka qiraa'ada qur'aanka kama maarmo qur'aanka iyo qofka muslimka ma kala maarmaan waa in yacni qur'aanka uu daa'imaa oo uu akhriyaa oo uu ku dadaalaa haddii uu doonayo waa liibaan haddii uu doonayo waa sharaf wainahu ladikrun laka waliqawmika wasawfa tus'aluun buu yidhi ilaahi subxana wa tacaala yacni sharaf buu idin yahay buu yidhi ilaahi subxana wa tacaala qur'aankan nebigaa lagu leeyahay iyo qoladaadina sharaf buu u yahay ilahi wuxuu yidhi laqad anzalnaa ilaykum kitaaban fiihi dikrukum kitaab sharafkiina uu ku jira ayaan idiin soo dejinay qofkii sharaf iyo cizi doonayo calayka bilqur'aan qur'aanka ku dadaal qofkii wanaag doonayo qur'aanka ku dadaal qofkii liibaan aakhira doonayo qur'aanka ku dadaal qofkii jannad doonayo qur'aanka ku dadaal bishanna aan uga faa'iidaysano inaan ma aragtay qiraa'ada qur'aanka aan aad iyo aad u badino axaadiista ku soo aroortay fadliga qur'aanka wax la koobi kara ma aha yacni matalan hal xadiis haddaan kusoo gabagabayno xadiis cuthmaan ibnu cafaan fi saxiixayn nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi khayrukum man tacallama alqur'aana wacallamah dhammaantiin waxaa idinkugu khayr badan qofkii qur'aanka bartay oo haddana dadka bara qofkii qur'aanka intuu isaga bartay
yani haddana dadka sii baraya oo faafinaya. marka qur-aanka inaan wada baranno oo haddana insha allah mustaqbalka ku talagalno inaan noqono mucalimiintii bari lahayd ayaan isu dardaarmaynaa. bishan aan uga faa'iidaysan lahayn inaan qur-aan badan akhrino, dhageysano, oo aan maaragtay ka faa'iidaysano. hada wabillahi tawfiiq. wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu.